when my first marriage markaa ninkii kala tagnay I was like naciimo hadda 3 caruur baa wadataa yaa nin wadaad iska raadso oo adiga iyo ilmahaadaba wax idinku tara oo wadaad ah ilaahay ka cabsada yeah because I was tired of the bad boys because I was into the bad boys baby my weakness are bad boys so I was like macalinka dugsiga ku qabtay bano macalinka dugsiga oo ilmaha u geenaya ku qabtay markaas waxa ay dugsiga ii aaday laba ii aadaysay my oldest daughter iyo waxa ii aaday my son waxaan naciimoy you know hadda waa qof weyn aan noqotay wild ka waxa iska daa 3 caruur wadataa and then I was thinking I was like you know what I want qof wadaad ah qof yeah war macalinka dugsiga aan ku qabtaan ku iri for the sake of my kids I wanted somebody or you know somebody or because I was wild baby I was wild so I was like you know I want to change I want to do something different for the sake of my kids like I wanted macalinka dugsiga aan ku qabtaan oo masaajidka joogayaan abku si hay macalin asab marka aniga I'm straightforward even my shukasi is raw baby is very raw macalinkii waxashona uu yaabay and he liked that raw straight up like what's up you know I started shaking on the phone you know it was cool it was different it wasn't my cup of tea but it was okay again I wanted to change of scenery I didn't want the bad boys anyways macalinka dugsiga wuxuu yiri jalaabib baan ku gelinaa indhaha baan ku xiraay niqaab baan ku xiraay adaan ku guursado shukaas la maroya wuxuu yiri adaan ku guursado indhaha baan ku xiraayayo hay baan sorry ladies sorry god meeshaan waxaan gal ilaahay iska ogyahay marka xali yiri jalaabib baan ku gelinaa wadaadu ahaa uu jalaabib baan ku gelinaa indhaha baan ku xiraayayo yeah I was like okay so cute okay first time we met face to face we sat down guy one thing about me is smell it's a deal breaker for me how you smell is a deal breaker baby this dude came it was a date but he didn't want to call it a date but I call it a date because for that but we met in a public place coffee muhasa abene but baby he came to I think what is so national had the makeup irba dhac isku soo siiyo lipstick irba dhac isku soo siiyo hadde ma Chanel aan isku soo siiyo yeah Abohelo came on the date this is when I noticed this guy is really off my league he came to the date smelling like hulbo I'm not kidding hulbo iyo malmal iyo waxa umarsanaa wadaadkii I was like oh no baby I can't do this I want to sacrifice for my kids but I said I cannot do no hulbo and and he smelled like garlic and ginger I was like why do you smell like garlic and ginger hadda toonta waa daawada subaxdii markaan soo kaco xabad sowda iyo toon shiidan baan qab ka siya yeah I was like wow really xuur wadaadki subaxdii markaan soo tooso markaasaa porskiisu ka soo baxay I swear to God I couldn't wait to end that day baby I could not wait to end that date Ben makushiga meeshaan fadhiisanay we ordered coffee we were just sitting there talking and I couldn't even focus go hindisaan bila wuxuu jecel yahay baquur wuxuu soo marsaday baquur yar dhac isku soo siiyay toontii iyo xabad soodadii oo subaxdii cuno porskiisa ka soo baxayay it literally because if you eat it every day it becomes your sweat you understand wuxuu subaxdii markaan soo tooso toon iyo qaada xabad sooda baan dib isku siiya waa daawo mudaawaad weeye ya daawadaas baan aniga ya aan dhab isku siiya ya I was like I don't think this is gonna work you understand I wanted to sacrifice for my kids but I was like I couldn't do it I said
I'm sorry, I'm gonna go back to my bad boys. This is too much for me. This too much. But he was a nice person. But the smell to me was a deal breaker. Like, you could not be smelling like hulbo. Like, I'm sorry, like hulbo habat soda. Like, no. So I was just like, Well, like, we sat there for 15 minutes. I had to cut it short. I gotta go. I gotta go pick up my kids. I'll talk to you later. So we tried for a few months. It didn't work. We even got to Gura Garne, but I could not. I would literally pass out. Like, that's not my forte. I was just like, kids, I'm gonna have to find y'all another bad boy. Hello, gonna smell like. I couldn't do it, baby. I couldn't do it. Marka we sacrifice for our kids. Try in ilmaha u sacrifice graysid ani baxal episode iyo xulba iyo waxba isku taraagay. I said, I can't do it. Why horta xabad soda iyo xulba iyo why do we do that? I'm gonna talk about that topic some other time. Mudawaadkan iyo xabad sodadan korka la iskaga rugayo